magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Jaamac aad iyo aad baa u mahadsantihiin warbaahinta Dalmar kulankiina galabta waa ka mahad celinaya waxaan jeclahay inaan ka hadlo qodob hadalhayn badan dhaliyay oo ku saabsanaa booqashadii ra'iisul wasaaraha ee gobolka Mudug oo dad badan ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen runtii dhacdadaas waxay ahayd dawladda Puntland waxay diyaarisay qorshe heer sare oo maamuus leh oo lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Mudan Xasan Cali Khayre taasoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee Puntland lagu soo dhaweeyay ee ahayd markii saddexaad oo imaanayo Puntland tariyo doorashadiisa kadib mararkii hore uu yimi waxa loo soo dhaweeyay si heer qaran ah si heer Soomaalinimo ay leedahay laakiin waxa moodaa maalinkii dhaweeyay wixii gaarka ayuu ka sameeyay ra'iisul inay ahayd wax dhaafsiisan borotokoolka dawladnimo iyo borotokoolka qof mas'uul ah oo inta la eg maadaama uu ra'iisul wasaaruhu u dhaqmay sidii carruurtii oo kale kadib markii uu diiday qaabka ay dawladdu ugu dejisay jadwalka ay raacaan kuwaas isugu jira jadwalada kulanka kuwa booqashada iyo kuwa nasashada isugu jiray dawladuna ay lahayd hagida wixii siyaasadda dawladda ayaa ku shuqul leh iyo maamuuska heerka noocan oo kale ah inta kadib waxa raba dhalinyarada Puntland meel kasta ay joogaan waxaan joognaa Puntland baa joognaa waxaan reer Puntland wixii siyaasadda dawladda Puntland ayaa iskale iyada ayaa rabnaa inaan uga dameyno iyada ayaa rabnaa inaan ku ixtiraamno ma jiri doonto qof reer Puntland in loo adeegsado burburka Puntland waxa laga soo shaqeeyay dhibaato badan bay la kulantay intii ay soo istaagtay 1998 cidii ogeyd ayaa muqraatiga dhibta laga soo maray hadii ayna idinku ogeyno waxa weydiisaan waalidiintii dhibta laga soo maray Puntland sidaas oo ay tahay hadii aad moodeysaan asaasiyaasha Puntland inay maqan yihiin anaga ayaa waxa ah asaasiyaasha labaad ee Puntland waxaan bala qaadanaa dhalinyarada Puntland inaan la soo dhaxmari doonin cidii la soo dhaxmarana inay noqonayso kuwa cawaaqib xumo kala kulma reer Puntland waa ummad isku duuban waa ummad isjecel waa ummad jecel Soomaalida aniga cidna igama jecla ninkii doonaya aniga inuu yiraahdo qaradunis baa tahay qabiil baa tahay reer Puntland baa hay ida jeclaa iyada ku faana Soomaali baan ahayna waxaan ku heshiinaa qaadano wixii dawladda federaalka ah iyo Soomaaliya ay wada leeyihiin aan wada ilaashano waxna waa leenahay waxna waa kala leenahay muhiimadu waxay tahay in sida loo fahmo dhalinyarada jiilka dhalinyarada ee badan ee dhalaalka waayaha yarka ay istusinayaan waxa rabaa inay fahmaan dhibaatada ay leedahay waxaan oo kala qof ka shaqeeyo reer Puntland waa dad difaaca Puntland dhaqaale ku bixiyay hanti ku bixiyay naf ku bixiyay Puntland iskama iimaan jiritaankeedu waxa loo soo maray dhibaato tiro badan baa loo soo maray waxaan ka xumaa maanta dhalinyarada qaar reer Puntland in arko waxyaalaha noocaas oo ku milmaya kuwa fiidiyowan daawad doona qaybtood waa rajeenaya inay ku qanci doonaan insha Allah bidnillaahi kariim waxaan nahay dadka Puntland iskale waxaan nahay dadka Soomaaliya iskale annaga ayaa u taagan sharafta dadkeena iyo dalkeena siyaasadda dawladda Puntland ayaa uga dameynaa wixii siyaasadda dawladana waxa laga rabaa wixii hagida dhalinyarada ay ku jahaynayso inay la timaado annaguna diyaar ayaanu nahay inaan qaadno qorshahaas oo ku shaqeyno hadii Ilaahay idmo diyaar ayaanu nahay wax badan inaan ku shaqeyno ra'iisul lacag buu keenay dhalinyarada ugu deeqay ma aragtid miyaa midaan aad baa u mahadsantahay Khaliif Geelle lacagta ra'iisul wasaaruhu uu bixiyay waxa ogaataa inay jirto wax la wada leeyahay ama ha noqoto deeq caalam ama ha noqoto wax ka soo xaroodo kheyraadka guud ee dalka hadda ka hor waxa dhacday iyadoo lacagta garoonka Mira Awaara dawladda federaalku inay dawladda Puntland lacag ay ka codsatay dawladda federaalka lacagtaas oo ay lacagta loo yaqaan searcher money qaybteeda qoondada ay ku leedahay inay u wareejiso garoonka Mira Awaara dawladda federaalku waxay soo saartay warqad bila kadib iyadoo dhahaysa waxaan ku deeqnay lacag garoonka Mira Awaara garoonka waxa ku jiray dadkii lacagta wax ka aruurinayeen lacagta ay dawladdu ku deeqday ma ay lahayn iyadu waxay lacag qondo ay Puntland ahayd oo Puntland ay codsatay in loo soo wareejiyo xilliga waxa warqadda qoray wasiirka maaliyadda ee Puntland si la mid ah lacagtan maanta la leeyahay khayr bixiyay waxaan u arkaa lacag dhaqaalaha Soomaaliya laga bixiyay dhaqaalaha Soomaaliya ana wax kula dawladdu wax kula